السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب قارقة ku xiran channelkayga idlayaan soo dhawaada asxaabi maanta waxaan idin wadaa program ka duwan programada hore aad uga barteen channelka insha Allah taala waxaan kusoo gudbin doonaa waxyaalo carruurta ku saabsan waan ka faa'iideysan doonaa marka asxaabi maanta waxaan idin wadaa program ku saabsan carruurta insha Allah qaar badan oo kalena waan idin soo wadaa marka maanta wuxuu ku saabsan yahay ilmaha sida loo jeclaysiiyo wax qorista ama wax akhriska waxyaalahaas oo kale maadaama hadda iska bateen waxyaalahan la daawado ama giimamkan iyo waxaan sad carruurta uga mashquulin lahayd iyo sida ay aad u bari lahayd inay wax akhristaan marka asxaabay marka ugu horeysa waxaa fiican ilmaha in loo sameeyo jadwal baad sameynaysaa xilliga wax daawanayaan xilliyada casharada iskuulka sameynayaan iyo xilliga wax akhrisanayaan marka buugaag ay xiiseynayaan oo fiican oo buugaagta siiriyaha ama adigu wax ka wada hadlaya loo saamaynaya weekend dhowr buugad u saamaynaysa dadka meelaha inta qurba degan library-ga ama biblioteka meelaha sida u saamaynaysa marka ilmuhu hadduu akhriska jeclaado waxa kale oo dhan iska deynaya waxa laga yaabaa inaanu halku de TV-ga ka dhigan lahaa balwad waxa akhrisku jeclaanaya magaranaysa mar walba buugaag buraadinaya marka qofka weynayna uu ku caawiyo ilmaha inuu buugaagta u saamaaneeyo hadduu doono u soo iibiyo marka buugaag wax fiican ka hadlaya waxna ka baranayaan oo da'dooda ah kuwa aan akhrin karayna inaad adigu u akhrido la fadhiisato oo mararka qaar guriga oo dhan inta laga dhigo qofna aan waxba daawan oo laga dhigo qaar maxaa la yiraahdaa TV-ga la iska daayo oo wax akhris ilaa dadka waaweyn adiguna aad akhrisatid buugaag soo amaanaysatid ilmo markasta adiga tusaale u ah ama tusaale adiga oo aad ku arko adiga wax akhrinaya isaguna uu ku dayanaya marka mararka qaar in guriga laga dhigo guri wuxuu laga akhriyo waqtiyada ka mid ah saacad ama 2 saacadood leeyahay hadda waxba akhriyeena waxna weyn qorinaa waxba lama daawanayo marka ilmihii uu jeclaanayo hadhowtana wuxuu noqonaysaa wada fiican bay noqonaysaa inuu mar walba buugaagta soo amaanaysto qof mar walba waxa waqti badan galiyo ayuu jeclaadaa marka anigu wax badan waan ka arkay wallahi waxaan wax ka aragay lama soo share gareynayo laakiin waxaan arkay carruurtu inay aad iyo aad u jeclaanayaan marka dadka waaweyn wax la sameeyaan hadii laakiin adigoo ku arkan ama telefoon ku hadlaya ama adigaagu weyna wax daawanaya deeyaguna waxay rabaan waxay daawadaan laakiin waxa hadii aad adigu la sameyso markasta carruurtu waxay jecel yihiin ma sameeyaan waxa lagu wada sameeyo laakiin waxay sameeyaan waxa qofka weyn ay ka arkaan marka dhamaanteen xitaa anigu weyn ku jiraa inaan carruurta waqti gelino waxaan ku yiri waxyaalaha imka la daawanaya aad u batay marka iskuulka kale xitaa dhow ku adkaan kara ilmuhu haddaan kelmado badan ku filan haysan marka sida ilmaha maskaxdooda iyo inuu kobcino inaan buugaagta u badino wax qorista buugaagtu aad iyo aad muhiim u yihiin ilmaha maskaxdooda kobcinaysa kelmadaha yaqaanaan baa badanaya hadhow iskuulka kale wax laga yaabaa ilmaha wax akhriya iyo ilmaha wax akhrin isku mid maaha ilmaha kelmado badan buu baranayaa iskuulka kale wax dhibaato kuma noqonayo laakiin ilmuhu haddaan buug ba akhriin ka war markuu guriga yimaadana TV un daawado xilliyada waxaan ku dhifasaxi guriga la joogana wuxuu daawado marka buugaagta carruurta kula dadaalno barno waxaan ku inaga dadkeena inta badan waxa ma akhriyaan quraankana xitaa quraanka kale aad waqti uga dhigto buugaagta kalena waqti uga dhigto ma sha Allah ilmaha maskaxdiisu koraysa ilmaha waxaan ku uri kaale araga noqonayaa maskax badan wax badan maskaxdiisa ku jiraan halkuu ilmaha faaruq noqon lahaa wuxuu daawanayaa buugaagta maskaxda kubcisaa marka insha Allah taala aniga adiga qof kasto carruur haysta iyo qof kasto walaala oo carruurka waaweyn carruurka yar joogan aynu carruurteena ku caawino say wax u akhriyaan oo aanay TV-na 24 saacadood daawan marka buugaagta carruurta waxa u fiican kuwa sawira imka ilmaha yaraan qoraalka aqoon oo kale ama akhriska kale aqoon aad rabto inaad akhriska barto waxa ugu fiican aan anigu arkay inay shaqeynayso buugaagta yar maartay sawirada leh ciyaalka yar iyo waxyaalaha yar ka hadlaya kuwaas oo kale aad iyo aad u fiican oo ilmuhu markay bildiga sawirkii isla arkaan iyo qoraalkii way akhrinayaan way isku dayayaan in akhriyaan xuruufta kalena waxa soo iibinaysaa waxyaalo ciyaar oo kale ay ku ciyaaraan ka xadaranaysaa ciyaarta ku ciyaaro kala doonaysaa marka way fiican tahay ma sha Allah waxa kale oo jirta qofka imka ilmo yar oo iskuulka bilaabaya haysta ama farjira marka rabeen baro qoraalka
buugaag dadka Sweden joogo kale wax jira buug yar oo 4 sano ilaa 5 sano ah oo sawiradu ku yaalaan iyo wax kasta iyo xuruuf oo ilmuhu ku baran karo qoraalka ama akhriska xayawaanku dhan ku yaalo waxyaalaha soo badan baa jira maasha Allah markaynu caruurteena akhris kula dadaalno iskuulka kala ugu fududaanayaa ilmihiisa isagoo akhriska yaqaan hadduu iskuulka bilaabo ilmaha lixjirada ay kala bilaaban iyagoo qoraalkiiba akhriskiiba yaqaan way fududahay marka macallinku cashar u dhiibo ama xisaab u dhiibo wixii uu akhrin karayaa uma baahna in qof kale uu sugo marka asxaabey intaasaan idin la wadaagayaa insha Allah taala dhamaantiin aan soo sameeyno wax kala badan insha Allah waan idin soo wadaa carruurta ku saabsan programkaas aan kusoo daray hadda carruurta markaan u buugaagtaan akhriyay iyo waxaan anigu khibrad u leeyahay oo anigu sameeyay ma la soo gudbinayaa insha Allah taala marka waxaan leeyahay asxaabta qaaliga channelka ku xidhan hadii hore ila joogtana soo dhawow muuqaalka hadii aad ka heshay sii share garee asxaabtada la wadaag haddaad nagu cusubtayna soo dhawow ayaan ku leeyahay wax badan oo fiican baan idin soo wadaa insha Allah wax carruurta ku saabsan iyo wax kasta oo aan siraado waxba laga faa'iideeyaa waan idin soo share gareyn doonaa marka asxaabay sii share gareeya aad iyo aadna waxaan ugu mahadcelinayaa asxaabta qaaliga channelka ku xidhan dhamaantiin kuwa cusubada igu soo biiray kuwa hore ila joogay aad iyo aad baan idin salaamayaa jazaakallahu khayrukum sida quruxda badan aad ii soo dhiirigelisaan marka waxaan idin leeyahay asxaabay sidaa iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh